السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan naga daawanaysaan waa Mahad Axmed official channel. Magaciiguna waa Mahad Axmed Cali. Waxaan ahay nutrition coach, healthy coach. Dadka ayaa noloshooda wax badan ka bedela. Hadday noqon lahayd dhanka lifestyle-ka, nutrition-ka, nafaqada, maaragta business-ka, party time, full time, qofkii doonaya extra income qofkii rabo. Waxyaabahaas channel-kan uga soo hagaagaysa. haddii aad ka heshay insha Allah ama aad raadinaysay channel noocan oo kale inaad hesho subscribe ayaan ka codsanaynaa waxa weeye haddana gambaleelka inaad furato si aad u rukumato wararkeena insha Allah asxaabtadana aad la sii wadaagto commentigana aad nagu dhiirigeliso insha Allah aad u mahadsantihiin adduunya wax success adiga naftaada success u sameynaya dadkii kalena success u sameynaya noocay doontaba ha noqoto okay oo positive do it haddii laakiin khalad ay tahay oo lagu leeyahay yaniga waa run yaniga hebel maxay waxaad samaynaysaa qalad bay ku tahay dadka ahab bay soo kordhinaysaa bulshadii bay baabiinaysaa naftaaday baabiinaysaa kuma wanaagsan waa tala wanaagsan qaado okay that's it different ما شاء الله runtii waa hadal aad iyo aad maanta de qof kasta taabanaya runtii waxaan dad badan ka faa'iideysan doonaan especially dhalinyarada jecel lahay inay de wax weeye ka faa'iideystaan fursadda runtii guys u qaata dhab u qaata because waqtigan maanta la bixinayo waa waqtigeedii adiga kugu habboonaa maantay aad noloshaada wax ka bedelin imisa sano ayaad jeceshahay inaad nasiib daawato imisa sano ayaad leedahay waxaan ma shaqaynayaan 4 sano u shaakir halkan soo fadhiyaa in noloshiisa sii bedelaysaa maalinba meel best shape waxa weeye businesskiisa kor u sii socdaa ma socdaa waxa aan wax shaqaynayo bil iyo labo ka badan ma dhaafaa okay marka adigu imisa sanad marka sii daawanaysaa daawado ahaanaysaa oo dee aad iska noqonaysaa qof dee iska daawado keliya muhiimaddu marka waxay tahay haddii aad meesha aan lagu lahaynba qarashkeen iyo midna go'aan qaado keliya marka go'aankaagu ha noqdo midkii noloshaada bedeli lahaa go'aankaagaas maantay ha noqdo midkii noloshaada bedeli lahaa maantay aadna ku kala ogaa laheed de waxaan laga hadlay maanta dee Herbalife waxa samaynaya dee waa adduunkii oo dhan runtii waa mararka qaar waxaan idhaa warniyo dadkoo dhan yaa shaakir oo kale ka dhiga dhalinyarada because inay ta go'aan qaataan hadaf yeeshaan dee noloshooda ay yes ay dhahaan okay wallahi waan isira mararka qaar because waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo energy ku jiro oo fursadii u baahan oo fiiri dhalinyaradu waa dadka lifestyle-ka jecel inay xaragoodaan ay rabaan baabuur wax badan ay wataan guryo ay leeyihiin inay baashaalaan meeshay rabaan ay iska fikir macnaha way jecel yihiin haddana fursadoodii haynaa haddana way baqayaan taas problemka ugu weyn midaas waay fiiri bal maanta waxaan coach waxaan aad u nabcaa jiray berigii hore dadka dhiirigeliya oo yiraahdo wow keep going waa samay karta madaxa lagu dhufo jiray because waxa way waanta waxaas u leeyahay meel ka bilaaban wixii ma aqaan okay marka laakiin maantay markan anigu faraha ka saaraya toolkaaga waa ka shaqayso laakiin ka war maanta qof kale hore u soco keep going ordada ka kac aan waxna ku hayn waxna ku sameey karinde markii xigta waxyaalaha iyaduna aadka u powerful ka waxa kamid ah anigu aan yani waxaad u baahantay maskax caafimaad qabta marka doonaysid inaad nolol caafimaad qabta ku noolaato sideedo maaha nolol caafimaad qabta yaniga just inaad aad iska nooshahay laakiin nolol caafimaad qabta xay nolosha doonayso okay inaad fikirka saxda ah caafimaadka qabtadaad haysatay yaniga qiimeyn kara real life-kaaga iyo waxyaalaha ku fiican iyo waxyaalaha ku fiicnayn iyo waxyaalaha qaladka ku keenay waxyaalaha ku istaagay yani waxa jira many things oo fara badan oo maanta hoosiiso badan baa jiraya oo maanta ka hor istaagay fursadaha noloshaada ama ku diiday inaad guulaysato marka mar walba waxyaalaha aad u baahantahay inaad open mind u ahaato yani marka lagu leeyahay be open mind yani maskax furno oo u maskax furno yaanta fursad u maskax furno maanta noloshaada u maskax furno maanta mustaqbalkaaga u maskax furno maanta negativity iyo waxyaalaha kuga hareeraysan cid walba noqon kara laakiin tusaale ahaan oo kale dadka aan wax ka dhageysanayo taasa iyadana aan isweydiin jiray okay dadkan wax ka dhageysanayo ama dadka iga hor istaagay waxaan u baahanahay iyagu dadkeebay yihiin okay iyagu maxay ku nool yihiin iyagu sidee u nool yihiin iyagu tusaalihii ma yihiin iyagu may hayaan marka let me stop this and stojiya tanot okay adigu xaggeedii ka haynaysaa okay يعني هو real ما كقف يسويديني just wake up إناس كعساد وcall wake up وcall يسوي سمي سنتر okay hey عيرتي روانو كذا حاضرينه ليش عيرت ها hey okay حتى يعني عد كستين نقول كران يعني تصال هانو كل والد كامل نقول كران حتى ما أنت وحكاسور استاجي يعني فرصة ذكر استاجي فرصة واحد شوتشي hey يعني والد كي مو جماعة الصوت ما حوص سمعني مرة بدل وإيه ما نسى
waxaad way muhiim kugu ah hooyada dhacday ku badan aday ba kugu dhacday historygaagayba ka mid inay hooyada igu tiraahdo I love you my mom laakiin ay igu tiraahdo tusaale ahaan oo kale hooyo waxaanad samaynaysaa iska daa shaqo kala raadso okay khayrkaa way shaqaystaana shaqayso okay khayrkaa waxba baranayaan wax baro okay noloshu maaha markaa khayrka yacni say hooyada wax u qiyaasi karto waana falsafadeeda waana aragtideeda laakiin maanta this is my life tani waa noloshayda وين مركا وحنا أوجين باتشر وحنا أوجين باتشر وحنا أركيان أركين باتشر وحنا فهنسنين باتشر ما أنت نور الشيء وما أنت ما كان دوني أنا سبيتر سمي طبي كلام كده قدونا وقت بيانو ديران إن وحيوبا هنتا يعني إنا سويد ديسو إن معنيه يعني يس نور الشيء وحنا بدلي يعني ما تينا نكون هذا نورش ما أنت عن مضنا هاي because هو يسول الكرسي تاسي يسول كيس لكن ما أنت قوان كده سبدل كده قوله هذا وحصل وحترك وحصل أنا عليه صارت مسميني إنه حويا ما إمام سيدوكا waxaan doonaya maanta inay hooyaday maanta dee aan wax taro marka waxtarkaan tarayo kuma tari doono inaan wuxuun barto iyo shaqaale iyo waxa igu tiri sameeya khayrka uu sameeya noloshayda uma baahna inaan khayrka ilaahdo laakiin waxaan u baahanahay maxaa anigu u baahana maxaa iga wanaagsan deetana markaas aan sameeyo wax muhiim ah oo marka noloshaydana positive u ah dadkii kalena positive ah noloshay kale iyo familkaygiiba okay marka waxyaalo u baahan in badan u baahan in qofka la jabiyo si dadku yacniga u sameeyaan real life marka runtii waxa weeyaan tobageed dheereedo fara badan bay noqon doontaa oo de waxaan runtii aan ka sheekayna markasta ma ka sheekan karnaa iminka aan dhamaystirina ma waqtigeena aad iyo aad ma sha Allah marka coach laakiin maxaa dhacday markii dambe markaan yacniga sameeyey yacniga wixii aan markaas oo kale sameeynayo kale hooyo ugu tiri kor iska jooji markii aan guushan u baahnaa aan sameeyo kale aan ku dhagbalaaday aan ku go'aansaday inaan wixii sameeyo laakiin waxaan ogahay waa inaan fahamsanayn waxa sameynaya sababtoo ah guushii baan sameeyey maanta hooyada ku faraxsantay waan ii hambaliyaysaa mar walba she's proud to me wow nimad waa guryo badan oo u gaday maanta waxaan jeceshahay say doonaysa noloshii maanta we changed okay marka waxay leedahay waad mahadsan tahay wax fiican baad samaysay goor fiican baad go'aan qaadatay okay hadda laakiin inta okay uma baahni markii horena hooyo waxay isleed wiilkaagu yuusan maanta waqtigu ka lumin ha shaqaysto ha iska xamaasho sidoo dee maaragta laakiin iyadoo dee fursadan iyo hadafkan adigu aad leedahay runtii anigu dee dadkii waxaa ka mid ay kula bilaabay runtii serious businesskan historygaagana dee runtii aad iyo aadan ula socdaa mararka qaar xataa waxa weeye dee xaalada adag inaad soo martay faamilka xaaska meel kasta xaalada adag dee maanta laakiin aad ogeed inaad ka bixi doonto because dadkan maanta guulaystoo dhan coach runtii dhammaantood waxa weeye kaadidooday soo cabeen dhammaantood waxa weeye noloshay waxa weeye meel hoose kasoo wada bilaabeen marka qof kasta oo maanta nolosha guul ka gaara waxaa jira maalmo oo soo maro xanuun badan xanuunkaas wuxuu noqon karaa negative inay wixii aad ka wadi weyday maanta dad xaaskaagii hooyada iyo aabbaha iyo faabilkaagii markay ku garab istaagi lahaayeen ay jooji adigoo isdhahaya ka ilaalisha wiilkiina khatartan dee maantay dadkii kale yacaas ka dhigi kartaa moogta waradaha naga taga dhigi kartaa waa marad sigatay maya horta ma sahlana mahad runtii tusaale ahaan oo kale qofku inuu guul gaadho dad badan guuldarrada waxyaalaha u keenaya ka mid yihiin inuu guul gaadho inuu guul daraysto waxa weeyaan mid naftiisa ah oo khaasa oo wuxuu samaynaya iyo the strong aana ka ahayn okay oo naftiisu marar badan celcelin karto oo u baahan inuu ka adkaado oo naftiisu gudihiisa marar badan baa dee hoos qof bilaadan tahay okay marar badan bay ka hoos baxaysaa okay oo naftaadu dib ku celinaysaa laakiin haddana waxaa jiraya mar labaad bii'ada oo aanad ka guulaysan karayn dadkii bulshadii meeshaad ku nooshahay dadkaad la nooshahay familkii wax badan baa kugu hareeraysan culture okay wax badan baa jiraya okay waxyaalahaasoo dhan baa jiraya oo kugu hareeraysan haddaanad waxyaalahaasoo dhanna yac ka odhan naftaada waa inaad markaa yeelataa good philosophy okay waxaad samaynaysaa falsafad fiican waanad u lahaataa yacniga dadkii hadday tahay meeshaad ku nooshay hadday tahay meeshaad ka timi hadday tahay saad u nooshay hadday tahay dadka ugu hareeraysan hadday tahay familkaaga hadday tahay iyo waxaad samaynaysa waxaad u samaynaysa sababta successka lagu sheegaya waa taas halkaasun bayna ka imanaysaa experiencega dhabta aad tiraahdo okay maxaa no odhanaya maxaa yes odhan doona aad aadan aniga iyo daawadayaasha iyo kuwana daawad doonaba aan kugu mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga thank you so much adiga mudan mahad jazakallah khayran dhammaantiin waa mahadsantihiin oo ku faraxsanay waqtigaa maanta iyo maxay yahay runtii aan wada qaadanay qurux badan mahad aad baad mahadsantahay adii soo casubtay maanta sharafta iyo programkan weliba quruxda badan insha allah marka adigaa mudan wow masha allah
runta dhammaanteen horta waxa weeye aan u mahad celino coachkeena waqtiga qaaliga uu siiyo runtii macnaha history laakiin wax yaraa raadintaa taabtay okay laakiin marar badan insha Allah idiin soo casuumi doonaa oo maaragtay arki doontiin insha Allah biidnillahi kariim guys runtii noloshiisa from zero to hero noloshiisa uu bedelay wuxuuna ku bedelay go'aankiisa iyo dee markaas waxa weeye fishinkiisa because qofku hadduusan hadaf lahayn haddaysan jirin qofku meel uu ka yimid meel uu joogo meel uu u socdo waxa weeye waa ila meeraysa markaas laakiin xaalado badan oo adigu soo maray laakiin uu ka baxay okay runtii waxaan rajaynayaa qof kasta oo maanta muuqaalkan daawada inay isagana noloshiisa ay isbedeli doonto because maantay hadduu ku soo gaaray messagekan maantay umad ka bilaabaysaa wixii hore wax kaa galay male sanadihii ku soo dhaafay maantay haddii intaasoo sanad ku soo dhaaftay waa hawsha layn laakiin hadda maxaad qaban kartaa now maxaad qaban kartaa maanta waxaad heshay fursad qaaliya oo maanta kuu saamaxaysa inaad noloshaadii tan carruurtaadii faamilkaagii iyo dadkaaga dhan aad bedeshay communitygaaga maxaad qaban kartaa yes taas isweydii laakiin ha isweydiinin wallahi waqti hore inaan arkay ahayd wallahi waqti hore ugu fiicnaad muhiim maahan taas wixii hore waa tageen haddaad meelo badan kusoo khasaartay taas waa tagtay soo noqod male maanta laga bilaabo hore u soco marka topigeenu maanta runtii wuxuu ahaa sidee dhalinyaradu noloshooda ku bedeli karaan sidee dhalinyaradu businesskan uga faa'iidaysan karaan dhanka kale lifestyle hadday noqon lahayd nutritionkii waxaasoo dhan waa wax wada soco insha allah waxaad noo soo qori doontiin insha allah qoraallo haddii aan markaa idin soo gaari karno insha allah waan idiin soo jawaabi doonaa qof kastana wuxuu ku noolaa doonaa nolosha isaga uu jecel yahay waxaan kuu ballan qaadayaa caaway haddaad tahay qof sida dee coachka go'aan leh hadaf leh og waxa uu jecel yahay yaqaano waxa uu neceb yahay og meeshuu u socdo iyo nolosha uu u sawiran tahay nolosha inuu ku noolaado waxaan kuu ballan qaadayaa insha allah inaad nolosha ku nooldo okay oon ku siiyo plaankii iyo systemkii ay noloshaadu isku bedeli lahayd step by step insha allah ma jiro qof hal maalin dee wax kasta ku hela laakiin step by step reexamarkuna waxay dhahaan canjeela say u kala korreeda loo kala qaada okay muhiimaddu marka waa taas aad iyo aad mahadsan tihiin waxaan kaga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga oo runtii aad because waqtigu waa qaali aniga waqtigu qaali ugu yahay waqtigiina qaaliga oo aad maanta na siiseen oo nagu daawateen nagu dhegaysateen oo nagu sharafteen aad iyo aad annagan inkaga mahad celinaynaa insha allah biidnillahi kariim janaalkeena nolosha dhabtaa dadka ku xiran ayagana saas oo kale aad iyo aadan ayagana ugu maaragta mahad celinaya qof kasta oo muuqaalkan soo gaara insha allah waxaan ka codsanaya waxay tahay inuu u sii gudbiyo dadka kale because social media waa midi laba af leh okay midi laba af leh waa ama sakiin laba af leh haddaad xumaan ku sheegtan xumaantiyaad faafaysa ood shadaad sheergaraysmaysa haddaad wax wanaagsan iyo dhalinyaro wax wanaag ka hadlaya nolol iyo lifestyle iyo horumar iyo business xalaal ka hadlayana haddaad gudbidana dad badan baad noloshoodii bedeshay marka hadduu muuqaalkayga ku soo gaaro waxaan kaa codsanayaa because dee waqtigaan geliyey energyaan geliyey saacado badanaan geliyey wax kastaan ku bixiyey igu sharaf keliya inaad dadka kale usii gudbido keliya sheer aad taabato maxaad xaqiijiday daawatay inuu yahay wax fiican oo wanaagsan oo program topic fiican oo maanta dadka u baahan yihiin adigu inaad u baahan tahay qasab maaha waad u baahan tahay laakiin waxa laga yaabaa maanta inaysan kaa dhadhacsanayn ama waxba u arkin laakiin qof kalaa jiro markuu arko because aniga sidee fursaddan ku helay qof baa ii soo sheergareeyey coachku hadlaya den maanta nolosheedu way isbedeshay okay miisaankayga maanta inaan 102 kiilo ka keenay maanta dee aan best lifestyle ku noolahay maanta dee maasha allah waxaasoo dhan waxaa sabab u noqday qofkii ii soo sheergeliyay khayr allah adigana saasoo kale marka sheerta waxa weeye hadduu qofkan wax ka hadlayo ha sheergaraynin dhibaatay kugu tahay adigani kaaga dee waa dad qof muslina tahood cabsanayso oo ilaahay ka cabsanayso wanaag hadduu qofkanu sheegayo sheergaree insha allah billahi aad iyo aadan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay waa mahadsantihiin waqtigiina qaaliga insha allah waan kusoo noqon doonaa insha allah biidnillahi alkariim lifekeena marba qof cusub aan idiin soo casuumi doonaa inta aan ku kulmayno su-aalihiinana gadaalan ugu noqon doonaa qof kastana waan usoo jawaabi doonaa insha allah biidnillahi alkariim waxaana ka codsanayaa qofka markuu qoraal ii soo qorayo hadday youtube ka noqoto hadday facebook noqoto hadday instagram noqotoba inuu sheego waddanka u joogo waddankaasaan joogaa waxaasaana u baahanahay maxaad iga caawin kartaa
haddaadan waddankii sheegin waxaa laga yaabaa commentigii inaan haddana kuu soo qoro halkeed joogta okay marka intaan kuu soo qori lahaa hadda waxaad tiraa waa hebel hebel waxaan joogaa halkaas waxaasaan u baahanahay taasaa fudud marka hal qoraal ayaa markaas waxa weeye aad ana qoraalkii jawaabteed geelaysa aad iyo aad u mahadsantihiin insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu